بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا تاريخ الجرعال أنا يوم مقعي وحالي هذا عبد حيلم محمود مقالنا هذا جوجنا وحالي هذا جرعالنا دي إلى هذا وحي كنت متعرض أيضا عيل وضل وحول بمالين بمقعي بحضايا وحكو آل جري وقت جوه رسيدان مغلي عيلا كو آل جري أو عيل قعميضة وحبية بطنين وندتك عشكرين مرؤون لقاها لي مقعي ماشى سوق جوري أهاجرت جوري دتوعو يقان أقل جوريها دسن وعوي ماشى الديجان كهو عقد جلعنتها يو أرجع يحولها لو حريكرو لحد عيل كيارو أساسا جرعالنا مقعوية magaalada marka anu waxaan imid iyadoo coogaa dhisan heerka haatan ay joogto iyo wax u dhowna aan joogin oo wuxuu ahaayay laakiin qaabkeeda dawliga iyo dadweynaha intaba ay dhisan yihiin oo station leh oo hadda la yiraahdo ceel matoora leh oo hadda la yiraahdo wuxuu ahaayay wax uun dukaamaha ganacsiga iyo maqaayad wax laga cunayo wax ku yaaliin ayaan anugu imid markaan ku sheegayo 80kii bishii 12aad 11keedii ahayd intii ka dambeysay wixii jiray horay u sii socotay oo waa sii liibaanaysay inkastoo mar dhex colaada iyo waagi dawladda dhacaysay iyo mahbarada iyo waxa la dhigi jiray carrada soo galeen waa xoogaa xumaatay kala go'a galay aduu ilaahay idankiisa haddana waa soo noolaatay 20kan sano dambe oo colaadihii markay melad xaqiis u wareegeen oo carradan dhaafeen oo qabiilkii iyo wixii laga gudbay waxa weeye maaragtay way ay soo kabatay waxaweye marka ganacsi marka la yiraahdo dadka ganacsigiisu xoolaha waay magaaladan ayadoo degmadii Gurceel la yiraahdo oo gobolka oo xagga ka jiro wadooyinka soo gala kii laga keeno Dhuusamareeb halkiisa halkaana lagu gadaa gobolkaas Hiiraan Matabaano ka tirsan iyo Garijiro ka tirsan Hiiraan oo dhulkaas yihiin iyo kasii xagga iyo xataa xuduudda Itoobiya xoolaha ka yimaada halkaana lagu gadaa wixii ka yimaada halkaas iyo degmada Ceelbuur kana tirsan Galgaduudan aan ka tirsanahay xaqiisa halkaana lagu gadaa wixii ka yimaada degmada Balambal iyo dhulkaas ka yimaadiya wixii nooca waqooyiga aduu intii caabud ka sokaysa halkaana lagu gadaa say u badan yihiin geel iyo ari loo dadku uma badna geel iyo ari intaba waa lagu iibiyaa ganacsiga waa saas oo dhulkaan webi mooye meel kala beero ka baxay maqam waxyaabaha aan yar-yaro maaragtay xoogaayeen oo meel goofa inta oodo oo wax ku abuuro inta biyuhu qoyan yihiin oo ay ama ka soo baxdo meesha la yiraahdo digir ama qare ka soo baxaan oo yar waa jiraan laakiin wax magaaladii dabooli kara oo ma taqaanaa u muuqda ganacsi yimid oo wax galaya meesha kama jiraan ummaduna kuma ilbixin sida Shiinaha kale anuu filimada waa ku arki jiray buuraha korkooda ciiday ku daldaleen ayagoo wax ku beera haddana badar ka soo baxay qoslayaan waa arki jiray marka waxa waaye meeshaas heerkaas lama gaarin Soomaaliyeed waaba u badan tahay oo dadkii webiyaasha joogayad waxaad iska arkay dhul intaasoo hektarahon webigi waxba laga sameeynaad arkaysa marka nin 100 mitir biyo ka soo saaray beer ku fali karaa uma jiro u badan waxa lagu diriiraa kanaalada nina wuxuu ka soo jiidaa kanaalka meelaan 5 kiiloomitir amal ka yareeyno ka soo jiidaa mida baraag meeshii meel u dhow ka dhisaa kanaalkii ninkan iyo waxba u arkay xoogaa ka leexsuu isleeyahay waxa laga yaabaa biyo u kala go'aa inaysan markaa meesha ku diin isqa qabsigu waa ka yimaada meeshaas baraagaha ciriiriga la isku haayay ka mid tahay
ummadda gurceel deganay ilaahay u mahadnaqa nabadgelyada aad haysatiin ood ku mitidiin kuna mitida ciidamada la shaqeeya haddii alla yidhaaho cadowga qofow reebaa ma jirto qofow dhaafaa ma jirto waxa waaye col ilaahay xaggiisa ka yimid asagaa celi kare weeye hala digtoonaado ilaahayna haddii alla yidhaaho laga cabsado